sidee buu joogtayn karaa ama qofku sidee buu noloshiisa uga dhigi karaa qof wax akhriya oo maalin kasta ama labadii maalmood ama toddobaadkii ama jimco kasta wax akhriya waayo in wax laga yaaba qof aan cunto cun ma jiro qof aan seexan ma jiro qof aan nihi activity nololeed sameyn ma jiro waxa loo baahan yahay marka akhrisku activity-da nolosha ay sameynayaan ka midka yihiin cuntada iyo labiska iyo hurdada iyo waxyaabahaasi inuu saasoo kale nolosha uga mid qado loo baahan yahay marka talooyinka koowaad waxa weeyaan marka koowaad waxaad akhridaa waxaad jeceshahay ha akhrin waxa lagu amaano ama waxa lagu yiraahdo waxaas la akhriyaa laakiin waxaad akhridaa waxa adigu aad jeceshahay qof kasta wax gaar u jecel yahay dadka qaarkood waxay jecel yihiin sheekooyinka inay akhriyaan dadka qaarkood waxay jecel yihiin wararka inay akhriyaan dadka qaarkood waxay jecel yihiin taariikhda inay akhriyaan qaar dhaqanka inay akhriyaan bay jecel yihiin qaar jacaylka inay akhriyaan bay jecel yihiin qaar arrimaha qoyska inay jeclaan bay akhriyaan qaar siyaasadda qaar horumarka kale ee qaar dhaqaalaha marka adigu waxaad ogaataa waxaad jeceshahay waxaad markaa akhridaa waxaad jeceshahay un akhri markastoo waxaad jeceshahay aad akhrido waxay keenaysaa xiiso inaad akhriska u qaado marka qodobka koowaad haddaad doonayso akhriska qayb noloshaada ka mid inaad ka dhigto waxaad akhridaa waxaad jeceshahay qodobka labaad waxaad ka bilowdaa buugta fudfudud waxa aad doonayso inaad akhrido basica u ah ha ka bilaabin kuwa culculus ee waaweyn waxaa jirta qofku markuu doonayo mawduuc inuu akhriyo ama bilaabo tusaale ahaan oo kale qofku siyaasadda inuu wax ka akhriyo doonaya waxaa loo baahay qofku siyaasadda markuu doonayo inuu wax ka akhriyo inuu soo qaato buug ku saabsan waxyaabaha siyaasaddu ay ku tiirsan tahay basica hoose ee siyaasadda marka basica hoose qofku inuu akhriyo laakiin hadduu qofku ka bilaabo buugta waaweyn ee siyaasadda falaqaynaysa naqdinaysa taariikh hore ka warramaysa waxaa laga yaabaa qofku inuu jeclaan waayo ama inuu qofku joogtiin waayo marka qodobkaas waxa weeyaan waxaad ka bilowdaa akhriska buugta fudud ha ka bilaabin kuwa culculus ee waaweyn qodobka saddexaad waxaad samaysataa hadafyo yaryar oo ku saabsan akhriska tusaale ahaan oo kale waxaad tidhaahdaa buugga markaan dhammeeyo waxaan doonayaa inaan ka fahmo buuggaasaan maanta bilaabaya waa inaan bilaabo maanta isniin bay ahayd isniinteeda waa buugga waa inaan dhammeeyo waa konton page ka soo qaad kontonkaa page waxaad leedahay maalin kasta waxaan akhriyayaa sideed page baan akhriyayaa sideed markaa toban ku dhufato mise toddoba ku dhufato mise weeyaan macnihii maalintaan joogno maalinteeda oo isniina oo noqonaysa isniinteeda waa inaad buuggaa dhammayso maalintaan joogaa maalinta ay ku tahay 15 oo isniinta maanta isniinteeda kala waa inaan buuggaa dhammeeyaa waa inaan waxaa ka fahmaa waa inaan waxaa ka qoraa marka waxaad samaystaa hadafyo yaryar oo ku saabsan akhriskan aad wado samayso qodobka afraad naftaada ha dhibin ha isku dayin inaad intaad maktabadda timaado ama gurigaad fadhiisato inaad buug dhan caawa dhammayso ama berri aad dhammayso ama saad dambe aad dhammayso laakiin waxaad isku daydaa buuggan aad haysatee kuu furan inaad ka akhrido 5 page ama 10 page ama 15 page ama 20 page intaa waad kartaa haddaad su'aal ahaan oo kale caawa markaad xaafadda tagto adigoo waxyaabihii kale ee ku yaalla iska qabsanaya haddaad buuggii kala furto waxaa laga yaabaa 10 page inaad ku akhrido 15 daqiiqo 15 daqiiqo waa 15 haddii aad noloshaada joogtayso bishii aad akhri karto intaasoo buug waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha guusha keena ma aha qofku waxyaabo waaweyn oo sameeyo waxaa laga yaabaa qof baad arkaysaa guul weyn maanta gaadhay tusaale ahaan waxaad soo qabataa waxa la wixii maanta ku soo dhaco kale qof guulayso kala soo qabo qofka guusha weyn gaadhay waxa laga yaabaa inay istiraahdo qofkan muxuu sameeyay qofkan wax weyn buu sameeyay istiraahdo laga yaabaa laakiin ma guusha waxa la yiraahdaa waxa ku timaada waxa loo yaqaan anshaxa waxa weyn qofku in wax joogteeyo waxa uu maalin kasta qabto qodobka lixaad dooro waqti ku haboon oo akhrido dooro su'aal ahaan oo kale xilliyada ugu fiican qofka xilli baa u fiican laakiin xilliyada ugu fiican salaada subax ayaa kamid ah ee aad loo amaaray imaamyadii waaweynaa Shaafici iyo kuwii la midkaana xilliyada wax diyaarin jireen salaada subax marka laga baxo ayaa kamid ah wax kamid ah bacda casarka oo kale
casarka salaada casri marka laga baxo baqdameerka oo kale baan cishaayiga oo kale habeenkii qofku intuuna seexanin oo kale waa xilliyada ugu fiican ee qofku wax akhriyi karo marka adigoo naftaadana aan dhibayn waxaad samaystaa waqti ku habboon oo aad maalin kasta wax akhrido waxaan ku hubaa haddaad qaacidada qaadato inaad insha allahu tacaala guul weyn ka keeni doonto akhriska qodobka toddobaad waxaad qortaa waxyaabaha aad ka heshid ama ku xiiso geliya haddaad maanta soo qaadato buug maktabada yaala ka waayi maysid waxyaabo badan oo ku xiiso geliya hal ha ahaado qodobna ha ahaadee waxaa jirta waxyaabo badan oo ku xiiso gelinaya xiiso gaara ku samaynaya marka waxyaabaha notebooka ama mobilkaaga oo kale waxyaabahaasoo kale iskaga qoro qodobka sideedaad hawarwarin haddii aad wada fahmi weydo waxaad akhriyayso hawarwarin haddii aad wada fahmi weydo ama shaygana aad akhriyayso aad fahmi weydo warwar waxays odhanin waxba kuma fahmi sida iska tuur ama iska mataqaanaa laab ama iska dahays odhan ina ku niyadjaminin waayo waxaanaad akhriyaysaa ugu yaraan faa'iida ugu leeyahay faa'iidada uu leeyahay waxaa ka mid noqon karta in mataqaanaayay luqadii aad ka barato in aad beri ka maalin wax ka fahanto in shaygani uu xasuustaada ku sawirmo inuu noqdo shay weyn oo noloshaada ka mida uu noqdo qodobka sagaalaad waxaad kala saartaa buugta sheekooyinka iyo buugta kale buugta sheekooyinkii waxay leeyihiin hab loo akhriyo ama qofku inta ugu badan wuxuu akhriyaa dadka qaarkood inay ku dadaashaan bay u akhriyaan dadka qaarkood sheekada iyo waxa ka dambeeya u akhriyaan dadka qaarkood ujeedooyin kala duwan markaa dadka u akhriyaan marka waxaad kala saartaa buugta sheekooyinka iyo buugta kale hadduu buugku sheeko yahay waa inuu buugta kale kaaga duwanaado qodobka tobnaad waxaad isku daydaa inaad adigu si iskaaya wax u akhrido naftaada cidnaha barbar dhigin markaad wax akhriyayso hebel oo maalintii 100 beej akhriya ha barbar dhigin hebel kale oo maalintii 2 beej ha barbar dhigin laakiin adigu si iskaaya oo akhri kolbayntii markaa ay kula noqotay ee maalinta aad kartana akhri